أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا أقبلت يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلمتين ما أنت وحي كسابسنت هاي الاعتكاف اعتكاف محل إرادة اعتكاف محل إرادة لزوم المسجد والإقامة فيه بالنية التقرب إلى الله تعالى قفك إنه كنا هذا مسجد أصغر نيسانيو إنه الله سبحانه وتعالى أقول هذا نجاشاس وكنا جانايو مسجدك cibaadadaas uu ku dhex gudanayo masjidka mashruuciyadiisa marka manhajideentiisi culummadu waxay isku raaceen calaa annahu mashruuc inuu yahay wax la jideeyey oo facalaha nabiy sala allahu calayhi wasalam lianna nabiy sal slam kaana yactakif nebiga wuxuu ku ictikaafi jiray oo masaajidku dhex joogi jiray fi lcashri alawaakhir tobanka dambe bish ramadaan min ramadaan oo bish ramadaana ilaa ilaahay uu ka oofsado xataa tawafaahu allahu caza wajal kadibna sunno waxay noqotay nebigu u jideeyey أزواج منها أمهات المؤمنين وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أيقون سنة داسي ويفولين سيدة كوعد حديث كيورينا يان الإمام البخاري ومسلم إذا مركا اعتكافك ما يغو أقيب سماء اعتكاف عقب سماء الله مد سنة مد واجبة مد كالسنة وما تضوع به المسلم قفك مسلم كوحو زيادة وصمينا عباده إنه الله أقول دواده بطسي وبطسنا يطلب أجر وزيادة من الله تعالى ومركا ka dalbanayo qofka muuminka mid uu sameeyo waa sunno waqtidaan bir rasuul iyo kudashan nabi sallallahu alayhi wasallam ويتاكد arinkaasna marka wuxuu aad uu markaas sunno muakad u naqanaya oo qofka la rabo inuu sameeyo loo adkeenaya 10 al-awaakhir haduu sameeyo qofka muuminka firaaqan uu leeyahay jaanis uu haysto inuu sameeyo tobanka dambe bisha ramadaan ama al-i'tikaaf al-waajib waa wuxuu qofka asaga isku waajib yeelo oo ku nadar uu dhaho arinkan rabaa inaan sameeyo hadii aan helo ama hadduu ilaahay i waafajiyo waxaan samayn doonaa ictikaaf oo 10 maalmood ama 20 maalmood ama waqti inuu qabsado ku nagaado masjid marka zamanka la ictikaafayo goorma qofku ictikaafka uu sameynaya wuxuu sameynayaa sida nabiga uu sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam nabiga hadduu rabo inuu ictikaafo oo bil ramadaan ay tahay wuxuu sameyn jiray masjidka ayuu galayay salaad subax oo dukanayay kadib meesha maxalkii ama booskii uu ku ictikaafayay uu ku nagaanayay meeshaasii uu fariisanayay laga bilaabo maalinta bisha 20 ee tahay ramadaan ilaa laga gaaro dhamaadka bisha shuruudaha marka loo baahan yahay qofka mu'takifka laga baahan yahay waxa way ko marka hore inuu noqdo qof muslima oo mutamayiz ah oo qaan gaaray oo markaas daahir ah oo daahirka min al-janabati wal-hayd wal-nifas طيب arkaanta loo baahan yahay waxa waaye waa ko al-mukthu fi al-masjid bi niyyat taqarrub ila Allah ta'ala inuu masaajid ku nagaado asagoo niyeysanayo التقرب إلى الله إنه إله قد وانايو محاو بنان مركا قفك معتكفك وحاو بنان قفك معتكفك حالة سو صعود هذا أنك شكين دون كو هدي لعلو اعتكافا هدي لصوب بوغدو مثل الوجي مادو قفك صوب بوغدي ومع سلامين كرا وبنان تها إنه مع سلاميو تما هو شليسن كرا تما هو حيران كرا عنديها وسكجر كرا سيدو كلا معناها وكلكلها وطيفي كرا وسعرفين كرا رمتك هو ناكسن وحيران كرا حاجديس وصوبين كرا سيدا kaadida iyo markaa saxarada inuu wax cuno inuu wax abadusan helin qof uu adeego sidoo kale qofka mu'takifka ah wax uu cuni kara masjidka uu dhex seexan kara aadaabta lagu baahan yahay waxa kamid ah inuu markaas qof i'tikaafka sameeyo oo ah as-sunnah alla yacuud mariidan qof xanuunsan hadii loo sheego ma soo booqanayo asaga janaaza ma raacayo xaaskiisi markaas uma dhawaanayo wax xaajo oo laga maarmaan aan ahayn uma baxayo ولا اعتكاف بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع مسجد وين وإنه مركا كل اعتكافا قفكاس وكنا هذا اعتكاف مركا محابرنا أخيرا وحابرنا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا قفكا دو سكسا أو صبح المسجد كأسقو اعتكاف نيستي اعتكاف كيسو بريا هذه عقلي قفكا دو كتغو أو مجنون أو نقضو أو أما السكران أو نقضو وبريا أما دو مركا هذه مركا دو حيد كدعو أما النفاس للماء كدعو مركا يدشو اعتكافك وبريا marka i'tikaafkana waa shay fiican oo ajir badan laga helayo in qofka haduu wasco u helayo firaaqa u helayo waxa fiican qofka muuminka ama saa'imka
inuu ka faa'iidaysto sunnadaasaytay asagoo nooleynaayo sunnada nebi sala allahu alayhi wasalam mutaasiyan biha oo ajirkaasna dalbaayo iyo thawaabka iyo khayrkaas nafsadana uu xabisaayo wajazaakum allahu khayran وإلى لقاء آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا.